وبركاته ولا لا هيجوان السلامي وأنا جو أولاشين ليلة لايف ستايل أما روب لدع أما مرصوبة من بكو تقانين ما أنت إنه نسوقلين يوتيوب كيجا ما شاء الله أصحابتي ذا يقرأ على النقطة بيسأيان أهاي وينيش يبين روب لدع أهاي مركا ما أنت محارب بين السماية يوتيوب كساكس كفير فيرناي كبعدنا وحن هلي ما مسوماليات ومحي كهاليسا وحمر اللي جسوا بدي كهاليسا عم بريجو هردتك shidaal oo ahaan jirtay in lagu kiciyo hadda ma jirto taas way dhamaatay waxaan maleynayaa inuu jiilkeedu u dhameeyo tay hadda ka hadlayso maxay ku hadlaysaa waxay rabtaa Soomaaliya inay qabiil isugu dirto ama farmaajo ayay u hanjabaysaa horta inta waxaan leeyahay farmaajo noolow insha Allah ra'iisul wasaaraha noolow wix allaale wixii ummadda Soomaaliyeed wanaageeda jecel ama Soomaalinimada dhabta jecel ha noolaadeen cid ay yihiinba aniguna aan kamid ahay insha Allah biidnillaahi kariim intaan ka maqnahay waan mahagane manfaciyo hurdaba wayska maanacee hooyoy macaan mama aragtida ayaan aragnaa arkayna waxaan hadda ku sheegayaa inaad galmudug ku noqoneen oo meesha uu ka baxo farmaajo aad ka baxaysid waana la iska celinayaa inaan maalin kasta inta la dilo xisbiyada dad loo soo diro noocaado kaleeta oo la yiraahdo raaligelin ma jirto farmaajo madaafiic ayuu u isticmaalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Xasan Cali Qayre Cabdiraxmaan Xuseen Guuleed kulli dadkaas oo dhan oo wuxuu u isticmaalay madaafiic wuxuu isku dayay hotelkii Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif deganaayeenna in uu ciidamo u keeno maanta wax kuskusba male farmaajo xiliyii shalay aad ku soo fadhiisatay xiliyii yaa la rabaa inaad iskaga celisid hawiyaha aad ka caayisaan Facebookada aad qaatooyinka adiga ama safufto oo hooyada hawiyo canshuurta aad ka qaado aad ku dharjisay maanta laga rabaayo iska qabo farmaajo waa ka baxaya Soomaaliya meedkiisana waa laga takhalusayaa taas anoo maanta YouTube fadhiya in sheegay hal xaba rabaa inaan ka hadlo farmaajo noolow saacad buu leeyahay saacad sana dhaafi maayo way khaldan tahay intay doonto saacadana ma oga inuu qof walba saacad leeyahay saacadaasna uu go'ayo laakiin maxay rabtaa inay samayso farmaajo meedkiisa la qaadaya farmaajo haddaad dili kartid waxaan ku leeyahay adiga dil aan ku leeyahay haw ee xanaan ku leeyahay farmaajo miyuu ka fiican yahay ku dhiman jiray waxaan aaminsanahay waa maya meedkiisa la qaadaya waxaan rabaa inaan wax yar u sheego waxay tirinaysaa ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre Cabdiraxmaan Cali Shakuur in dad badan ay tirinaysaa runtii anu waxa way cidna aflagaadeyn ma cidna caaymaay laakiin wax yar baan waxaan rabaa inaan u sheego hal shakhsigaas oo ah ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore ahaa runtii aniga shakhsi ahaan waan jeclaa jacaylkan u jeclaana waxaan moodayay inuu yahay ra'iisul wasaare Soomaaliyeed oo mabda kor Soomaaliya u fakaraya ma moodaynin inuu ku soo noqonayo saacadan iyo Soomaali qabiil in la isugu diro iyo in la dhaho waqtigaas la soo celinaya waqtigay sheegayaan ma baana dhalan ilaahay ba nama tusin dagaal ma arag tan iyo maalinta dhashay ilaa haddana ilaahay ma tuso intii islaam oo aragtayna ilaahay waxa weeye dhimatay hawna xariisto inta aragtayna ilaahay waxa weeye in ha ka mayro qulubtooda okay waxaan rabaa inaan u sheego maamadan hooyadaada joogta oo ayeeye ah oo aan isdhihi karo ayeeye way dhaaftay macooyay u socotaa oo saacadan qabiil inay isku dirto rabta oo saacadan wiil Soomaaliyeed inuu isku go'o oo xabad la isugu dhiiba rabta wax yar baa ku jira hadalkeeda nin qorqor la dhahay u dhaaranaysa maaqaani waxaan ogahay inuu galmudug uu madaxweynaheeda yahay malaynaya Allah ku xiftiyo hadda mid Soomaali daacad u tahay okay farmaajo la jira bay u dhaaranaysa laakiin waxay tiri aniga qurbahan joogaabay hadalkeeda ku jira waxaan rabaa inaan ku sheego maamo qurbaha ayaad joogtaa maxaa yaala qurbahu maaha miya ka halyeeyada Soomaaliyeed oo yiriiriska oo soo kacaya xabsiga ku gura qaybna daraaga u dhiiba qaybna ay bedelaan waxay ahaayeen hooyada tahay hooyada maanta isku diraysa Soomaaliya rabta inay isku dirto
hooyadee waaye hooyada maanta qabiil ka fakeraysa damiir xumida aniga waan kula joogaa meel baan kula joogaa qurbahana wuxuu yahay waa ogahay maalin walba ilaahay waxaan ka baryaa inuu wadankayga nabad ka dhigo oo ilmahayga ku noqdaan wadankaygii oo nabada oo aysan ku dhicin ilmahayga anaa dawlad la-aan ku koray aysan ku korin dawlad la-aan even amni kaliya hadday helaan wadankooda iyagaa shaqaysanaya ku noolaanaya annagaa u shaqaynayna miyaadan arkin hooyo dareen la hooyooyinka 24 hours ooyaaya oo midna intay kusoo jabto soo korisay iyo aabayaasha 20 sano maalintuu gaaray laga tooganayo jalas loo tooganayo midna maalintuu dhashay oo uu saacada uurkeeda ka soo baxay sariirtuu ku dhashay lagaga qaadanayo miyaadan arkin quluub adkida naxariis darnida ilaahay u toobadkeen ilaahayna u noqo ilaahayna cafis weydiiso Soomaali weyna waad gaftay ee waxaad tiraahdaa waxaan ku hadlay wax fiican ma aha ka noqo waxaad ku hadashay isma lahayn haweenka Soomaaliyeed baa qabiil dambe ka hadlaya adigii haddaa saa u dhaqantid xagee kuwii yaryaraa joogaan hooyo jiilkaagii waa dhammaaday faramaajona wuxuu leeyahay saacad farmaajo noolow ra'iisul wasaare noolow wax allaale wixii Soomaali dan u haya Soomaali weyn oo horumarkeeda iyo mustaqbalkeeda ka fikiraya ha noolaadeen sheekhiya shariifba wax allaale wixii Soomaaliya raba inay dumiyaan oo qabiil soo celiyaan oo qabiil ma ahee Soomaalida waxba dana shisheeya intii madaxa la isugu galiyo ila wanaagay Soomaalida waa inta shilimaa loo dhiibaya saaleeya reer hebel soo baabi doonay gabdhahaagii waa laga gadaa wiilashaadiina waa la sameeyaa wixii raba lagu sameeyaa kuwa yarada waa la qaataa diinta laga bedelaa kuwa jeelasha la geliyana wixii raba lagu sameeyaa xubnaha jirka Soomaaliyeed ba hadii la rabo laga ganacsadaa hooyo dareen laay miyaadan intaa fiirin ubadkaagii miyay halaabeen haddayse halaabin ubad ma dhaleen miyaadan future-ka ka fakeraynin ma ogid miyaa adduunyadu inay tahay wax aad u yar qurbuhu kula fiicana oo kula wanaagsana ma garan karo waxaa ka hadlaysid maxaan u sheegayaa hooyooyinka Soomaaliyeed annaga haddaynu nahay haween qabiil ma lihin qabyaaladna nama taabato waxaynu nahay beer wiilasheena walaalaheen xajiyaasheena qof walba oo rag haddaa u sheegtid waxaan walaalo waa xun yahay iska dhaaf ama hooyo waa xun yahay wiilka dhibanaya adaa dhalay hooyaa dhashay kajeelka ku jira hooyaa dhashay ka xabadda la isugu dhibayo hooyaa dhashay laakiin hooyooyinkii maxaa naga soo dhex baxay hooyada soo miiran baa naga soo dhex baxday maanta uma haynaa filin soo duubo runtii diyaarna maanan ahayn laakiin kan madaxa iigu xidhan waan difaacayaa ilaahay idankiina waxaan rajaynayaa awlaadayda inay difaacaan dalka inay dalka wax u qabtaan ma baraya ilmahayga qabiilna ma yaqaanaan Soomaali haddaa weydiisay Soomaali baan nahay ku leeyahay muslimna waa nahay daraan laay ilmahaaga qabiil ha barin bar Soomaali baa tahay muslim baa tahay walaalaad tihiin kulli muslim waa walaalo Soomaalina wuu ka sii xag jiraa markaad shaqo aadid oo qof Soomaaliya aadid aad cadaan ama madow ku wada dhex jirtid qofka Soomaaliga oo uu kula dhisha u maleeyaa aniga qof walba soo u maleeyaa isaga u taalo laakiin ani maxaan u maleeyaa
inuu ila dhashay hooyo dareen la ka noqo hadalkaaga cafidna Soomaali weydiiso وانا السلام يا ولا لهيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان هنولادو صومالينا هنولاتو عدوغينا دولكا كان في عنا كر إن شاء الله بإذن الله الكريم وانا السلام وينو ايو مركلة باي باي